madaxweynaha cusub ee dawlad goboleedka Galmudug Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid oo maanta warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa Gaalkacyo ayaa ugu horeen waxa uu hambalyo ku aadan munaasabada ciida u diray dhammaan ummadda muslimiinta ah. halkan waxaan uga hambalyeeynaa munaasabada qaaliga ah ee Ciidul Fidriga ummadda Islaamka, ummadda Soomaaliyeed iyo gaar ahaan bulshada reer Galmudug meel ay joogaanba. Ilaahay waxaan ka baryeynaa in ummadda Islaamka iyo ummadda Soomaaliyeed maalintaas qiimaha badan inuu lagu siiyo dambi dhaaf bisheeda kalena ummadda adduunka iyo ummadda Soomaaliyeed Islaamka ayna inay ku gaaraan baraare iyo midnimo. Sareeyagaas Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid madaxweynaha cusub ee Galmudug ayaa dhinaca kale waxa uu saxaafadda u akhriyay wareegto uu ku magacaabay qaar ka mid ah golihiisa wasiirada. inaan halkaan uga dhawaaqo qaybtii koobaad dawladda cusub ee Galmudug. markuu arkay madaxweynuhu qodobka 49aad faqradiisa labaad ee dastuurka dawlad goboleedka, marka uu arkay madaxweynuhu baahida loo qabo in la magacaabo golo wasiiro oo karti iyo aqoon leh si loo dardargeliyo howlaha shaqo ee loo baahan yahay, madaxweynuhu wuxuu dekreeto ku soo saaray magacaabista wasiirada hoos ku qoran. 1 mudane Cali Nuur Xaaji wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga, Dr. Cabdiweli Sheekh Cali Maxamuud wasiirka maaliyadda iyo lacagta, mudane Cabdulqaadir Cali Jaamac wasiirka kalluumaysiga, dekedaha iyo khayraadka badda. 4 mudane Axmed Maxamed Baasto wasiirka warfaafinta, boostada iyo isgaarsiinta. 5 Dr. Cabdullaahi Jaamac Cilmi James wasiirka wasaaradda caafimaadka. magacaabistan wasaaraddu wasiiradu waxay dhaqan galaysaa taariikhda una saxiixa madaxweynuhu faafinta rasmiga ee qaranka iyo tan gudahana lagu faafiyo. marka laga reebo wasiirka kalluumaysiga, dekedaha iyo khayraadka badda iyo wasiirka caafimaadka ayaa saddexda kale ee wasiir ee uu magacaabay madaxweynaha Galmudug Cabdi Qaybdiid waxa ay ka mid ahaayeen saddexdaasi wasiirro hore uga tirsanaa xukuumaddii madaxweyne Caalin Axmed Qaliib Geedi. telefishinka caalamiga ee Somali Channel Gaalkacyo.